wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo uu helinayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood. waxaana ujeedka socdaalka wafdigan uu yahay xaaladda magaalada Laascaanood sidii ay xog uga heli lahaayeen indhahoodana ugu arki lahaayeen xaaladda magaalada ka jirta. ugu horeyn waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay duqa degmada Laascaanood iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha deegaanka, odayaal, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyntii halkaasi hadalkii ku bilaabay duqa degmada Laascaanood oo ku soo dhaweeyay wafdiga imaanshahooda magaalada Laascaanood. awalan ilaahay baynu mahadnaqaynaa mahad dhamaanteed u sugnaatay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee ka kooban ku jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. mudanayaal ku soo dhawaada degmadii Laascaanood. halkan oo ah afaafkii hore magaalada Laascaanood waxaa idin tuban soo dhaweyntiina u taagan shacabkii iyo maamulkii iyo ganacsatadii magaalada Laascaanood, xildhibaanadii golaha deegaanka, ciidamadii qaranka, bahweyntii haweenka, xaaji carfi, wasaaradihii haweenkii kala duwanaa. dhammaanteen waxaan u taagannahay soo dhaweyntiina. mar koowaad iyo mar labaadba ku soo dhawaada degmadii Laascaanood mudanayaal oo nabadgelyo ah. ilaahay xamdigii nabadgelyadeedu waa 100% waa nabadgelyo. waa idin soo dhaweynaynaa, waanu idin sugaynay. wixii hadalaa dib baynu haddii alla idmo aynu u dhiganaynaa. maanta halkan waa soo dhaweyn, fadhina waynu isku waraysanaynaa. wafdidii hore ka socotay dawladda ee wasiirada iyo jananada iyo agaasimayaasha guud ahana waa inoo joogeen. insha Allah tacaala halka waxaa ka muuqata sida dawladdu u danaynayso arrimaha Laascaanood ay ugu soo guntatay. waxaan rajaynayaa maanta kulanka dawladdu isugu timi magaalada Laascaanood inuu noqdo kulan madax u yeesha magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool. sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ayaa geestooda ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxdan soo gaadhay magaalada Laascaanood. sahlan annagu awal baracul ma wadin iminka ramba wadno magaaladu waa nabad. waxaana ku dhex galay cadow jabiya dhex galay. intii cadow jabiya dhex galay xalay waa ladana, laakiin intii hore xabad iyo kacfadhiis baan dilay. hase ahaatee waxaad dileedahay ahlan wa sahlan soo dhawaada. annagu waxaanu dad Soomaaliland darina dimaradii wasiirkii arrimaha guduhu maanta inala joogo isaga inoogu filan arrinta oo aynu u daba fadhina iyo wixii kale oo ciidamada la shaqeynaya iyo maayarada iyo madaxda oo dhanba. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin ayaa isagu ka hadlay socdaalka ay ku soo gaadheen magaalada Laascaanood. waftigan wada soconno anoo magacooda ku hadlaya marka ugu horeeya waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furaanta ah ee aad noogu soo dhaweysan halkan. aad iyo aadna waanu idinka mahad celinaynaa. sidii maayarka u sheegay arrimahana hordhac bay inoo noqonayaan. hadda waynu u fadhiisanaynaa, waynu ka talinaynaa, waynu ka arriminaynaa. waxsaan idin xasuusinayaa waayihii hore wakhtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynu soo dhignay iyo sida aynu soo asaasnay ayaa caaqilka adkayta maanta taagan. halkii un baynu ka wadaynaayo ahmiyaddeennu waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin. halkaynuu soconna waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin. wixii arrinana cid walbana waynuu xaqsooraynaa. cid walbana maxaanku dhahday hawsha ay leedahay way ka bognaysaa. arrintanna waynu isaga imanaynaa, waa laga hadlayaa. laakiin intaan hordhac ahaan u sii sheegaayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalinno. waxa inoogu qiimaha badan leh ee inoogu maxaanku dhahdaye ahmiyadda badan leh ee aynu ku noolahay waa nabadgelyada. nabadgelyadana waa laynagu majeeran jiray. waynu ku dhaqannay, waynu ku tarannay, waynu ku xoogsannay, waynu ku ganacsannay, waynu ku horumarnay. ubadkeennii waxbaynu ku barnay. meeshaan intaa oolini lagumana ganacsado, ubadna laguma korsado.
xukuumadda haddii aannu nahayna waxaannu annakuna ballan qaadaynaa nabadgelyada inaannu maxaanku dhahday labada gabcoodba ku qabanno inaannu nabadgelyada xoojinno xukuumadda wixii loo la leeyahay iyaduna waajibaadkeeduu yahayna waannu dhammaystiraynaa waanaannu gudanaynaa. cabdiqaani xasan baarax, warbaahinta qaranka Somalilan, Laascaanood. wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo uu helinayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood. waxaana ujeedka socdaalka wafdigan uu yahay xaaladda magaalada Laascaanood sidii ay xog uga heli lahaayeen indhahoodana ugu arki lahaayeen xaaladda magaalada ka jirta. ugu horeyn waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay duqa degmada Laascaanood iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha deegaanka, odayaal, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyntii halkaasi hadalkii ku bilaabay duqa degmada Laascaanood oo ku soo dhaweeyay wafdiga imaanshahooda magaalada Laascaanood. awalan ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mahad dhammaanteed u sugnaatay wafdida uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee ka kooban ku jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. mudanayaal ku soo dhawaada degmadii Laascaanood. halkan oo ah afaafkii hore magaalada Laascaanood waxaa idin tuban soo dhaweyntiina u taagan shacabkii iyo maamulkii iyo ganacsatadii magaalada Laascaanood, xildhibaanadii golaha deegaanka, ciidamadii qaranka, bahweyntii haweenka, xaaji carfi, wasaaradihii haweenkii kala duwanaa, dhammaantay waxaan u taagannahay soo dhaweyntiina. mar koowaad iyo mar labaadba ku soo dhawaada degmadii Laascaanood mudanayaal oo nabadgelyo ah. ilaahay xamdigii nabadgelyadeedu waa 100% waa nabadgelyo. waa idin soo dhaweynaynaa, waanu idin sugaynay. wixii hadala dib baynu haddii alla idmo aynu u dhiganaynaa. maanta halkan waa soo dhaweyn, fadhina waynu isku waraysanaynaa. wafdidii hore ka socotay dawladda ee wasiirada iyo jananada iyo agaasimayaasha guud ahana waa inoo joogeen. insha allahu tacaala halkaa waxaa ka muuqata sida dawladdu u danaynayso arrimaha Laascaanood ay ugu soo guntatay. waxaan rajaynayaa maanta kulanka dawladdu isugu timi magaalada Laascaanood inuu noqdo kulan madax u yeesha magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha iyo haweenka ayaa geestooda ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxdan soo gaadhay magaalada Laascaanood. sahlan annagu awal bara culma wadin iminkana ma wadno. magaaladu waa nabad. waxaana ku dhex galay cadow jabiyaa dhex galay. intii cadow jabiyaa dhex galay xalay waa ladana, laakiin intii hore xabad iyo kacfadhiis baana dilay. hase ahaatee waxaadnu idin leenahay ahlan wa sahlan, soo dhowaada. annagu waxaanu dad Somaliland darina mar haddii wasiirkii arrimaha guduhu maanta inala joogo isagaa inoogu filan arrintaa oo aynu u daba fadhina iyo wixii kale oo ciidamada la shaqaynaya iyo maayarada iyo madaxdoo dhanba. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin ayaa isagu ka hadlay socdaalka ay ku soo gaadheen magaalada Laascaanood. wafdigaannu wada soconno anoo magacooda ku hadlaaya marka ugu horreeya waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furaanta ah ee aad noogu soo dhawaysan halkan. aad iyo aadna waannu idinka mahad celinaynaa. sidii maayarka u sheegay arrimahana hordhac bay inoo noqonayaan. hadda waynu u fadhiisanaynaa, waynu ka talinaynaa, waynu ka arriminaynaa. waxsaan idin xasuusinayaa waayihii hore wakhtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynuu soo dhignay iyo sidaynuu soo asaasnay ayaa caaqilka adkayta maanta taagan. halkii un baynu ka wadaynaayo ahmiyaddeennu waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin. halkaynuu soconna waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin. wixii arrinana cid walbana waynuu xaqsooraynaa. cid walbana maxaanku dhahday hawsha ay leedahay way ka bognaysaa. arrintanna waynu isaga imanaynaa, waa laga hadlayaa. laakiin intaan hordhac ahaan u sii sheegaayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalinno. waxa inoogu qiimaha badan leh ee inoogu maxaanku dhahdaye ahmiyadda badan leh
ee aynu ku noolahay waa nabadgelyada nabadgelyadana waa laynagu majeeran jiray waynu ku dhaqannay waynu ku tarannay waynu ku xoogsannay waynu ku ganacsannay waynu ku horumarnay ubadkeennii waxbaynu ku barnay meeshaan intaa oolini lagumana ganacsado ubadna laguma kororsado xukuumadda haddii aannu nahayna waxaannu annakuna ballan qaadaynaa nabadgelyada inaannu maxaanku dhahday labada gamcoodba ku qabanno inaannu nabadgelyada xoojinno xukuumadda wixii loo la leeyahay iyaduna waajibaadkeedu yahayna waannu dhammaystiraynaa waanaannu gudanaynaa cabdiqaani xasan faarax warbaahinta qaranka Soomaaliland laasanood